waxaa hadalkaygan shirka jiray ku saabsan yahay in aan wax ka ilaado xaaladda gobolka Sool daruuraha colaadda ee dul hoganaya ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga badbaadiyo tan iyo intii dagaaladu magaalada Laascaanood ka dhaceen kama mid ahayn dadkii ka gabaday ama ka hamraday inaan runta ka sheego waxa ka socda magaalada Laascaanood hadday tahay xilligii mudaharaadada hadday tahay xilligii dagaalku bilaabmay ilaa tiraba 3 jeer ayaan si badheedha aragtidayda u cabiray ma yihi ninka gabada runta ma yihi ruux garsoor xun mar haddaan horena uga hadli jiray oo aan ku dhaliilay xukuumadda siday wax u waday oo shacbiga dilka lagu hayay iyo xabadaha aan ka soo horjeeday waxaan bixiyay halkudhiga xaaladda Laascaanood laguma xakamayn karo ama xal uma noqon karto xoog iyo xabadi balse waxaa xal u noqon kartaa xikmad iyo xirfad halkudhigaasaan ka bixiyay intii dagaalku socday madaxweyne Muuse Biixi wuxuu igu yeeray talo isagoo iga weydiinaya arrimaha xilliyadii dagaalku uu bil socday waxaan kula taliyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu magaalada Laascaanood ciidanka Soomaaliland ka saaro in shacbigii ka qaxay barakacay ee banaanada waran lagu soo celiyo magaaladana laga daayay in la dumiyo waxaan u arkayay dan ummadeed inaan colaadu fogaan baan u arkay ma garwaaqsan nasiib darro talada iyo kuwa dad kaleba siiyeen waqtiyo aanu dalada ururada isugu nimi si badheedha ayaan aragtida u cabiray anigoo damcay inaan ku qanciyo madaxdii ururada nasiib darro waanu ku kala aragti duwanaanay waanu ku qaybsanay waxay taageeray iyo wixii soo horjeedayba ma ahayn inaan midnimada iyo wadajirka iyo xuduudaha Soomaaliland khiyaanaynay laakiin Sool waxaan kaga duwanaa siyaasiyiinta kale waa gobolkaygii waa deegaankaygii nin walba waan uga dhuun daloolaa dadka halkaa yaalayna waxa weeye oodii Soomaalidu waxay tahay ab ka dhow ab iyo jid baan ka soo jeedaa wanaagoodan ka tirinay maanta waxaan jecelahay hadalkaygu inuu u bato dhinaca shishe ee awoowayaashay iyo gacalkay colaadda ka dhacday gobolka Sool waxay ahayd ilduuf siyaasi ah iyo ayaan darro labada dhinacba ma aaminsani inuu dhinacna fayow yahay oo bari yahay Soomaalidu waxa jira halkudhig afka qalaad ah there are 3 sides to every story your side their side and the right side sheeko waliba waxay leedahay 3 dacal dhinacaaga iyo dhinaca ka soo horjeeda iyo dhinaca sax ah marka ma qabo in dhinacna ka fayow yahay waa laga xisaabtami doonaa taariikhduna ma qarin doonto gefafka gabood falka halka ka dhacay ummadda Soomaaliyeed isuma kala xigto sida ay isu kala abtirsiimo xigto hase yeeshee ummadda Soomaaliyeed waxay isu kala xigtaa sida isu kala ood xigto khasaaro weyn baa inagu dhacay maanta dad badan oo inaga dhintay labada dhinacba maxaabiis la hayo dhaawac fara badan oo darxumooyin badan qaba hub la kala qabsaday waxaas oo dhammi inkastay khasaare yihiin waxa weeye
ووح لك السوق كبنكرو waxaan arkayaa laba dhibaato culus oo aan laga sida looga soo kabtaa dhaqso ay yihiin kow subcadeeni iyo sharafteeni umadahan in ay dhulka gashay subcadeena waxa kamid aha inaynu nahay dad heshiin kara wada xaajoon kara aan shisheeye dhaxdhaxaadin wuxuu kana tanaasuli karaa sharaf weyn oo Soomaaliland leedahay bay 30 sanadood baynu dhisay sumcadaha waqti dheer baa la dhisaa waqti yarna way ku dumaan arinta labaad waxa weey ummad wada jirta baynu nahay oo kala laalaata wax kasta aan kala tabanno oo aan kala tirsan uur kala guuray baa maanta ii muuqda uur kala guurtay way isku soo noqotaa uur se kala guuray sidoo isugu soo noqdo way adagtahay khasaarahaas aynu qabnaa gacalkayo garbaad u leedihiin inaad tamashleysaan iyo inaad tunka taagtaan maanta waxaan sayidin leeyahay iska daaya tooxa tiiqtiiqsiga iyo ku tumashada xad dhaafka ah waa dow inaad damaashaadaan iyo inaad u dabaal degtaan guusha amaanta haysaan hase yeeshee dow maaha inaad gunnimo diriirtaan iyo inaad ku digataan dadka walaalihiina ee ilaahay idin daawo qaaday ilaahay baa laba u daawo qaaday labana iyagaa daawo qaata mar ilaahay baa inoo daawo qaaday oo deris baynu nahay deriskaaga ma dooratid marna waynu daawo qaadano waxbaynu wada samaysano waxbaynu wada dhisan ismaynaan qabsan ismaynaan gumaysan jirin aw yeeshayna isma gumaysan maantana isma gumaysan karo ninka ku hameeyana wanina habeen jirin gacalkayo furaha nabaddu maanta wuxuu yaalaa laascaanood garowwe boosaaso iyo gaalkacyo ee ma yaalo burco berbera hargeysa iyo boorame farihiina waxa ku jira laba fure mid colaadeed iyo mid nabadeed ma habboona inay iskaga kiin khaldamaan labadaa fure inay iskaga kiin khaldamaan ma habboona waxaa habboon inaad furaha nabadda isticmaashaan waxaa habboon intiina waxgaradkee culimada aqoon-yahanka garaadada dadka aragtida dheer inay taliyaan ma habboona marxaladdan in gaas koowaad taliyaan iyo in jamaahiri taliso ma habboona nabad lagu heli maayo taa haddii dagaalkaasi baaho oo maanta bulshada reer miyiga u gudbo waxaan ka digayaa cawaaqib xumada uu dhalin doono labada dhinacba way jirtay xilli furaha nabaddu uu fiyaaradaha Soomaaliland yaalay nasiib darro arrintaasi waa la ilduufa nin haddaad taqaan aabbihiina waa taqaanaa waxaanu idinku naqaanay waxaa la idinku yaqaanay gobonnimo iyo guurtinimo maguuraan ah waxaa idinla gudboon inaydaan talada ilduufin maanta taladu maanta idinka idin taal taladuna waa mar la garan waayo iyo mar la gaari waayo waxay Soomaalidu ku mahmaahdaa geelu hadduu labada dambe ka habeediyo waa ged lagu yaqaanay hadduu labada hore ka habeediyana waa ged la soo baxay waxbay iska celisaa waana kala cod goosataa laakiin gobtu isma cariso ciidana isma jiijiido gacalkayow hadal waayeel waa goomar nin xikmad badan baa la yidhi dadka yaa ugu gobsan waa murti af carabiya man cafaa idaa qadar waman axmala ida intasar walam tudqihu cisatu الظفر
qof guulaystay oo aan aargoosan dul yeeshayoo wax ka tegey aan markaa mowqifka uu joogo iyo gacantiisa sarraysana kibir aanay geyaysiin iyo xadgudub aad iyo aad baan madax dhaqameedyada iyo mas-uuliyiinta reer awowga iyo gacalkay u dhegaysanayay ilaa iyo intii xaaladdii jimco u dhacday nin waliba wuxuu yidhi wuu taariikhday ku jiri doontaa nin digtay nin dan ka hadlay nin dul lahaa nin dooday nin wax dadafeeyey intaba iyo nin dan sheegtay intaba waa dhegaysanayna saaxiibkay garaad jaamac garaad ismaaciil oo aanu nahay rag isku guri ah geel iyaguna wada daaqo iyo garab hadal wanaagsan buu ka yidhi guumayse wuxuu idhi maalintii maxamed kaahin hadduu odhan jiray anaa ciidanka joojay anna maanta anaa joojay waad mahadsan tahay waana kugu bogaadinaya garaad waana kuu qoran tahay ninna haluu leeyahay laga dafiri maayo laakiin taariikhdaasaan dib isu taagayaa waxaa laga yaabaa rag badan oo talada ku jiraa maanta dhinaciinna inay talada ku cusub yihiin rag badan oo halkaa iiga muuqdaan aabbayaashood iyo adeeradood baanu wada shaqayn jiray ragna waa rag yaryar ragna iyagoo waaweyn baanay talada ku jirin markii dalka la soo galay iyadoo laysu ciil qabo oo duruufuhu adag yihiin oo waxa dhacay wax weyn ahaa habeenkii laga tashanayey amarka madaxdii ururka SNM soo dirtay in laascaanood la galo anigu markaa goobtaan fadhiyey raggana waa u yaraa waxaa markaa lay magacaabay duqa magaalada burco guddoonkii iyo gunaanadkii wuxuu noqday magaalada laascaanood guriga garaad cabdiqani garaad jaamac fadhiyo guluf ciidan gelin mayno garaad cabdiqani mowqif qiimo badan buu lahaa wuxuu ahaa boqorkii beelaha garaadkii beelaha dhulbahanti oo dhan dalka waxaa xukumayay maxamed siyaad barre oo haddii reernimo laga hadlayo nin daarooda wuxuu qaatay war isaaq iyo dhulbahanti waa laba reeroo walaalo is-oodxiga colaaduydu waxbayna tari mayso aan la nabadno yaan la xasuuqin isaaq mowqifkaasi waa loogu abaalhayaa xogaal baanahay ilaa iyo baligubaduu tegey gowla laaluu noogu yimi rag badan oo qiimo badan baa la socday maxamed cali caataye maxamed nuur fagadhe maxamed nuur saalax fagadhe baasha cali jaamac rag fara badan baa la socday oo aqoon-yahana oo qiimo badan alwafaau bilwafaa habeenkaa markii laga talinayey maxamed kaahin waraaba cadde cismaan dacas muxuu ahaayey maxamed haddii alla ka dhigo xasan kayd maxamed rag fara badan badanoo baa joogay taladaasaa la qaatay garaad jaamacow labadaa haddaad isu tuurtay waxaan ku xasuusinayaa allow habarta sima loo aasay buu yidhi waa haddii axanku raaca intaa waxaad buuxin doontaa oo libteeda buuxsanaysaa dee intii aanu samaynay markaad inteeda samayso 5 cisho gudahood baanu oog ugu yeedhnay waxgaradkii iyo waayeelkii dhulbahanto oo dhan annagoo guurayna saraakiishayadii siyaasiyiintayadii dhammaantood ay burco jooga halkaasaanu ku koranay gogosha annagaa dhinigan waa kow laba oo nabadda annagaa ku baaqnay dhulbahanta ha isdhiibo nabaddana ha ku baaqo maanu odhane annagaa nidhi waar nabad baanu sidnaa laba cid xoola kala qaadi kartii cid isdili kartaa maanta laga bilaabo ma jirto dhinaca dhaca badan tirsanayay ee geelasha badan laga hayay waxay ahaayeen guryihii dhinacan go'aan qaraar oo adag buu ahaa inaan xakamayno anigu shaqadii igu adkayd waxay ahayd burcona inaan nadiifiyo burcana nabad ka dhigo waddadaana waxaanu ka wada shaqaynay yaasiin faratoon axmed hoolif
rag fara badan oo qiimo badan baan ka wada shaqeyn in la isnabadgeliyo shilal yaryar oo dhinaca sanaa ka dhacay mooyaane nabad baa lagu wada noolaaday waxaanu keennay wax alla wixii maxaabiis ahaa ee Soomaali oo dhan aanu ka qabanay ee saraakiil lahaa kuwii haweena gaar baanu gudbinay oo Cabdikuus baa watay kuwii mareexaan oo reerkii aanu isugu colaada weynayna waanu gudbino ugaaskii mareexaan ee caabud waanu geeyay way noogu abaal hayeen waana noo abaal gudeen oo wax alla wixii isaaq ka soo baxay Muqdisho way soo bambaaniyeen alwafaa'u bilwafaa gobtu galad bay kaga jawaabtaa wax alla wixii daaroodee kalena hartiyana halkaasaanu idinku dhiibnay goobta ayaan idinku dhiibnay inteeda markaad qabato ayaad oran doontaa intaasaanana kordhiyey maxaabiistii baad haysaa dhaawiciyo silcayana waad haysaa waana kuwaan maanta doonaya inaan waxgaradkeena idinkala hadlo colaaddu iyo nabaddu mid waliba waxay leedahay ufo iyo unkod ka soo horeeya maxaabiistoo la sii daayaa waa gogol xaadh nabadeed iyadoo la daryeelaa waa gogol xaadh nabadeed dadka ragga waxa fiidhkoon la laynay waa gogol xaadh nabadeed garaad jaamaco waa og tahay anna waan ogahay rag badan oo ciidamada Soomaaliland oo soo fiiray ayaa la laayay kuwa si wacan loo qabtay oo la badbaadiyayna oo maamulku badbaadiyayna waa ogna waa idinka mahadnaqayna qarin mayno laakiin raggayna waa yeelkii ragaydaan qaban oo badan baa nugaal lagu laayay oo fiira oo reer miyilaay mid baanu haynaa magacyadoodii anigoo aan talada maanta ku jirin baan ogahay anigu waliba soonka xoog loo eegay ragga lagu laayina waa guryahan isxignay rag baa godheeli agtiisa lagu laayay iyagoo ka soo baxaya xuduudda marka waxa weeye arrimahaas waxa maanta nabaddu arrimaha ku xidhmaysa waa kuwa colaadihii hore barahan bulshadu kuma jirin maanta bari bulshada hogaaminay taa qurab ma ahayne colaadii kalshaale markii ay dhacday anigu waxaan ahaa dadkii ka soo horjeeday ee ka shaqaynaya inay nabad dhacdo rag badan baan kaga aragti duwanaa oo aanu wada wasiiranahay culimada madaxweynaha habeenkaa waxa uu yimi culimadii reer Hargeysa oo uu hogaaminayo Sheekh Xasan Cabdisalaam Sheekh Maxamed Cumar Diriir iyo Food Ahmed Beledi codsigay ula jeeday ugu yimaadeen afartiiba uu aqbal kow inuu nabad ku dhawaaqo laba inuu barkadaha aaso anigu waxaan kamid ahaa raggii la diray habeen barkii ee la yiri barkadaha soo aas adaa laga doonaya barkadaha habar jeclo kalshaale ka qoltay inaad aasto 45kii maxbuus la hayay in la sii daayo aroorta afar ciidanka Soomaaliland in laga soo celiyo Maygaagle iyo Hagogan afartiiba madaxweynuhu waa aqbalay dagaaladii laascaanood ee Soomaaliland ku qabsatay ilaa 100 maxbuus baa Soomaaliland sii deysay raggii ugu waaweynaa saraakiisha dhulbahantaa ku jiray Siciid Dooba kamid ah oo fadhii jiray Qorilugud waxa kamid ah Deyr Cabdi isku soo digay raggaasa kamid ah waa tii la sii daayay wargii u dhigmay ragga amaanta haysa Faysal Cabdi Bootaan iyo Ahmed Gordiyol oo maanta maxaabiis gacantiina ku ah waxa kamid ahaayeen saraakiishii ciidamada SLM waxaanay kamid ahaayeen saraakiishii ciidanka Soomaaliland rag mudakara bay ahaayeen gifka maanta loo tirinayo kuwa la amrabay ahaayeen hase yeeshee markaan ka dadafaynba eedda loo tirinayo colaadda ka hor waxay ahaayeen dadkii uu bulshada reer Sool ugu jeclaabay kamid ahaayeen labadaan Faysal Cabdi Bootaan iyo Ahmed Gordiyol iyo saraakiil kaloo laascaanood lagu dilay oo ku dhimatay oo kamid yahay Cabdilaahi Ibraahim oo sarkaal aad u qiimo badan ahaa Ibraahim Ismaaciil Cali Khayre oo isaguna sarkaal ahaa taliye guuta ahaa Ahmed Dacar oo taliye guuta ahaa
ismaaciil cabdi ibraahim oo mateed ku magac dheeraa cabdi cali maxamed oo isaguna taliye urur ahaa raggaasi waxay ahaayeen rag yaqaano sida khilaafaadka loo xaliyo tobaneeyo sano joogay sool bulshada la saaxiibay wasiirka madaxtooyada markaan ahaa waxaan markhaati ilaahay ka ahay in ay laga wada adeeg sheegan jiray oo aanay caarkiina xumayn oo aanay cirdigiina meel kaga dhicin oo ay colaadiha dhexda beelaha dhulbahantay wada dhexdhexaadiyeen kuwii ka dhacay taleex xudur dabataag iyo goobahay la midka ah colaadahaasoo dhan kuwii dhiigga walaaladood kala badbaadin jiray bay ahayd gobtu durta oo keliya wax kama eegtee daabacana way ka eegtaa raggaas waa ragga hadday eedaha leeyihiin gobannimadaana way lahaayeen idinkuna reer goba baa tihiin way quman tahay inaad dhinacaana ka eegtaan abaalku waa wax weyn oo jira abaalku waa wax weyn oo jira xilligii saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa gabadh saxaabiyada baa quraysh ka soo baxsatay hal bay ku soo baxsatay makiya madiina waa masaafad dheer nabigii bay u timi calayhi salaatu wasalaam waxay tii rasuulka ilaahay waxaan ilaahay ugu nadray haddaan bax soo nabad galo hashaa i nabadgelisa inaan bireeyo masaakiinta hilibkeeda ugu sadaqaday nabigu uma diidin nadarkii inay fuliso laakiin wuxuu ku yidhi bi'sa maa jaasaytiiha waxaa xumaaday waxaad ku abaalmarisay buu ku yidhi oo ah dee waabay kula soo baxsatee inaad maalmo u sii dayso nolosha bay ahay laakiin nadarkii dee waynay fulisaa ereygaasi wuxuu ku tusayaa inaanad maalin qura gobtu aanay dhinac qura un wax ka eegin maantoo qura iyo 30kii sane u dambeeyo keliya soomaaliya isma dilin maalin walba way isdili jirtay gobtu waa isdishaa wataan lahaa gobtu waxbay iska celisaa waa kala cad goosataa laakiin isma cariso iskuma digato 1920kii waxaa geyiga soomaalida ka dhacday dhacdo aad u culus ciidankii quwadda badnaa ee gulufka weynaa ee taraawiishta ee uu hogaaminayay sayid maxamed cabdalla xasan ayaa la jebiyey ee dowladda ingiriisku la dagaalamaysay xilligaana bulshada soomaaliyeed way qaybsanay sidaa maanta ay u qaybsan tahay qaarna ingiriiskay la socdeen qaarna taraawiishta jabkaasi markuu dhacay rag badan baa fiidhay oo taraawiisha oo kala yaacay waxaa dhacday markii jabkaasi dhacay ayaa cali aadan gorayo cali dhuux ayaa oy sayidka xiniif wanaag ahaayeenoo ishayeen oo markii hore darwiish ahaa ka baxsaday laakiin rag badan bay suugaanta isku hayeen sayidka waxaa ka mid ahaa cali dhuux waxaa ka mid ahaa salaan carabi waxaa ka mid ahaa cali jaamac xaabiil oo gabayo badan ay isu tirin jireen markii taasi dhacday buu gabay tiriyey gabayadu xilligaa baraha bulshada dagaalkan ka socday bay la mid ahaayeen bulshadaa lagu wacyigelinayey dareemadaa lagu muujinayey taariikhdaa lagu reebayey wuxuu yidhi isagoo ku diganaya sayid maxamed cabdalla xasan waa lagu digtaa ruux hadduu kuu darraan jiraye daaduunka sayid maxamed qabo waan ku diirsaday baldayaay wadaadkii waa kaasii dabayshaday salaan carabi oo ka mid aha ragga isaguna sayidka ishayeen ayaa gabay tiriyey uu ku durayo cali dhuux oo leeyahay maalintii lagu diganayey ninka soomaaliyeed ee la gaalku dilay iyo wixii la socday maanta maaha ku digashadu dhaqan gobeed maaha wuxuu yidhi daaroodka jabay waa isaaq dadab ku xeerayde haddii aqalka daahyada la jaro daakhilkaa hadhiye nin la dilay maxaan kaga digtaa sowma dabaalo sayid maxamed cabdilla xasanna gabay dardaaran la yaabuu tiriyey oo uu ku dhibsanayo digashadii cali dhuux iyo rag la mida wuxuu yidhi annagu diidi mayno wuxuu daaye noo qoraye ninkii dunida loo daynayaa haygu diirsadee inkastoo dalleenna la dhigay oo docilo noo cayman mar haddaan cidnaba laga daynahayn mawdka dakharkiisa ragga haatan soo diganayo daniye xeeshiina daarood ismaaciil ma oga
dowga loo qodiye waa kuwii dabaaldegay anoo gaali soo dilay doqonnimo darteed waa wuxuu igu diirsaday isagoo raggaa dhibsanaya buu sidaa ku yidhi xilligii daraawiishta ciidankii ingiriisku ka daba diray huwanta ee uu yidhi sayid maxamed cabdalle xasan nolol iigu keena ee ciidanka la duuliyey soomaali geella waa kala qaadi jirtay waana isdili jirtay laakiin meelaha qaar may gaari jireen waxay u yaqaaneen dhaqan xumo ciidankaa waxaa watay nin la yaa xaaji waraabe wuxuu badnaa ciidankaasi isaaq taariikhda waxba magacyada waa la xusaa waxba yay dhallinyaradu iyo dadka daawanayaa la yaabay raggaas way tashadeenoo waxay yidhaahdeen warina cabdalle xasan hadduu inala dagaalamana waa iska celinaynaa haddii uu ninkaasi wuu jabay meelihiisaa iska joogana ka daba tegi mayno dilina mayno oo bakti wareemi mayno gaalla u geyn mayno sidaasay ku tashadeen waa markii geeli hagoogane la qaadayey dadkayga labada docoodba iyo labada dhinacba waxaan leeyahay nabad baa ina deeqda nabad baa inoo dana dhammaanteen war nabadda sidii nabad lagu heli lahaana ha la qabto hambadana loogu talin lahaa gacalkayna waxaa laga doonayaa maxaabiistaana inay iska soo gudbiyaan wixii halkan yaallana la isdhaafiyo raggaa dhaawacana darxumadooda aan waxba looga tirin ay iska soo dhiibaan waxay tahay gogol xaadhada nabadday arrimahaasi ka mid tahay hadallada tiiqtiiqsiga leh ee meel baanu qabsanayna waxbaanu ku soo duulaynaana inay iska daayaan dadkayga waxaan leeyahay saddex lalama culooba bay soomaalidu tidhaahdaa nin cagtaada yaqaan nin codkaaga yaqaan iyo nin ciddaada yaqaan dadkani waa dad isku ooda isku aba isku isira dhiigoodana ciqaab badan baa ka dhalanaysa waxaan dunida laga heshiina ma jirto aniga talana waxaasaa iga ah tusaalena waxaasaa iga ah halkan inaan colaad ka abuuro uma iman inaan cid weeraro oo maagana uma iman hoga tusaalayn bay iyaga ahayd iyo maanta inaan gacalkay iyo awoyaashay in badan baan iyagaba u doodaye waxay ku beegan aan iyagana tusaaleeyo aad baad